والله كم هذه كل كون أكثرية هذه والله نفسه Soomaalidu hore waxay oran jirtay haddaad xilo doonayso xamaro ogow haddaad xoolo doonayso xamaro ogow xamaro waa faras markaa de waa isboobi jiray faras baa xoolaa lagu dhacayay faras baa dumarka lagu dhici jiray innagu hadda waxaanu leenahay haddaad nabadgelyo rabtaan diinta ogaada haddaad isku duubni rabtaan diinta ogaada haddaad rabtaan harumar iyo aqoon iyo cilmi diinta ogaada haadaa maa aradtu an aquula billahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم سودوا خياري سودوا الله يذن بركيه إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دقيقة موت الله سبحانه وتعالى هون حريستو شيخني شيخ عبد الناصر حاج أحمد الله سبحانه وتعالى قبرك هون نوريو الله سبحانه وتعالى مرتلج عليها كدقو الله سبحانه وتعالى حوتك النبي كورابيو الله سبحانه وتعالى شهادتي وحوي محاكل هذا حقو درو الله سبحانه وتعالى وحوي خير ورنها كورساغو إننا إلهي سبحانه وتعالى إنا مفد مايو الكيسي يا غرابديسي يا دمان ومد الصوماليادنا إلهي سبحانه وتعالى سمرها كسيو رنتي وغيري نحدين له وغيري حنون بدن وغيري مرغله لكن وحنا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دقيقة موت نفك استابو حيدا دمين استاقيري ده وحوي محاكو رضي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أيا ليري وادمان إسا إياقونا وادمان يانا أديقنا وادمان إسا لما أنت ندل بانكو وضا حكومنا هاي مالكستيني شوقنوا ساعد دبا ومقرنا إسا لما أنت بانو لنا ساعد ومنسوبينا واضحة وحاينو إن شاء الله بإذن الله الكريم وحير وحاينو إن شاء الله أين سوينا وحوي ساعدة أين سوينا الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه إلهي سبحانه وتعالى أنه ينفذنين وإلهي سبحانه وتعالى حقا ينقصوه سؤال شان سوي ديننا ولا بس سؤاله لبدا السؤال ميد وحوي يا دلي الشيخ عبد الناصر طبعا وحوي محاكو هذا والسؤال شان سنت way fududahay laakiin marka dhinac kale laga eegana way guda ballaaran tahay su'aasha labaad maxaa kismaayo dadka loogu qarxiyaa xilliga doorashada waa su'aal aynu is weydiinayno marka si share garay oo gudbiya oo umada gaarsiiya intaad gaarsiin kartaan waxa weeye maxaa kale marka ugu horeysa hadaynu ku bilowno yaa dilay sheekha waxa dilay al-shabaab baa dishay iyo inta la shaqaysatay baa dishay عدي علكا هاي بادشي علماء عدي علكا واحد أيا دشي واي عدي علكا وعدا عن وناقا دونين وعدا عن سمانت دونين وعدا عن مدمدة أمد دونين وعدا عن دينة إلهي إن مقران سايكور نغطان دونين وعدا وحوي محاكل هذا ومضان شرفتي ذي كرامة ذا دونين يا كمذا الشباب داد غلطة الشباب كمذا كوكا وعكمذا كو الله الشقايستا
kuwa la shaqaysta oo hogaamiye kooxeedyadu ay ka mid yihiin hogaamiye kooxeedyada iyo al-shabaab way wada shaqaystaan axmed madoobe iyo al-shabaab way wada shaqaystaan deni iyo al-shabaab way wada shaqaystaan kooxaha kale muuse iyo al-shabaab way wada shaqaystaan waayo cadowga ummadda weeye shabaab waa cadowga ummadda soomaaliyeed iyaguna waa cadowga ummadda soomaaliyeed waxay heshiis ku yihiin inay ummaddan ay baabi'iyaan inay ummaddan indhaha ka tuuraan inay ummaddan waxa weye maxaa ku dhahdaa waxgaradkeeda iyo culimadeeda ay laayaan ayay ku itifaaqsan yihiin tusaale yar baan idin siinaya walaalayaal tusaale yar oo kooban baan idin siinayaa in ay waxa weye ku midaysan yihiin dagaalka oo axmed madoobe uu dilka culimada wax ka leeyahay oo deni uu culimo magaranaysaa dilkii cuqaasha iyo maxaa ku dhahday dhaqankii lagu laayay magaalada boosaaso uu isagu ka dambeeyey oo wax ku leeyahay waxaan ii sheegayaa waxa dowladnimada la haddii dowladnimada laga shaqeeyo haddii ummaddan waxa weeye laysu geeyo haddii waxa weye maxaa ku dhaha awoodda dadka soomaaliyeed la mideeyo haddii waxa weeye ummaddan ilaahay looga boqo oo sharafteeda iyo karaamadeeda qofka maamulaha ahi meesha uu maamulayo si cadaalad ku maamulo al-shabaab ma jiri lahaayeen al-shabaab ma jireen al-shabaab geedka ay harsadaan waa dulmiga al-shabaab geedka ay harsadaan waa kala qaybsanaata al-shabaab geedka ay harsadaan waa muranka iyo dooda weeye iyo maxaa ku dhaha khilaafka ummadda weeye waxay ka faa'iidaystaan ee ay dadka ku laayaan ee ay dadka ku dhagraan waa khilaafka siyaasiyiinta iyo maxaa ku dhahday dagaalka siyaasadeed ee dalka ka jira wey taa ayaa inagu haysta marka waxa weye maxaa ku dhaha mararka qaarkood waxaa dhacdaa inay mu'aamaradaha ay la wadaagaan oo cidda ay doonayaan cidda ay tusaale ahaan dowladda oo kale markay kasoo horjeedaan sidii dowladda loo dhagri lahaa way iska kaashadaan sidii dowladda loo dhagri lahaa way iska kaashadaan way ka wada xidhiidhaan waxa weeye isku ujeedayleen waaye cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaaba soomaaliya tiraahdaa cid kasta oo markaa dowladnimada kasoo horjeeda ummadda soomaaliyeed waxay lug ku leedahay waxay qayb ka tahay waxaa amaam allah loo soo taagayaa in ay waxa weye fursadda wax allaale wixii al-shabaab geystaan inay wax ku yeeshaan xataa haddaanay ka dambayn xataa haddaanay ogeyn xataa haddaanay lug ku lahayn sida ay u yeelanayaan waxa weeye ummaddii bay u xidheen ummaddii bay u labadibleeyeen midnimadii ummaddii bay maxaa ku dhaha dhagreen waxa weeye furs bay siiyeen fursado ay wax ku dilaan bay u sameeyeen saa darteed dilka way la wadaagaan laakiin waxaanba hubaa oo aynu ka dherigsannahay nimankan badidoodu hadda waxa weeye qaylinaya inay dhammaantoodba al-shabaab ahaayeen inta hadda dowladnimada kasoo horjeeda ama maxaa ku dhahda kuwa xamar ka qayliya dheh ama kuwa kismaayo jooga dheh ama kuwa garowey magaranaysa ka taliya dheh dhammaantoodba waxay ahaayeen qolyihii magaranaysa maxaa ku dhahda gruubka ahayn kuwaas waxaana ay ka shaqaynayaan sida ay dowladda al-shabaab uga soo horjeedaan ayay iyaguna dowladnimada uga soo horjeedaan marka dee asem wey waa inay shacabka soomaaliyeed fahmaan waa inay shacabka soomaaliyeed hurdada ka kacaan waa inay shacabka soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan waxaa dilayaa ma aha shabaab maaha laakiin waxa weeye kuwa inoo sheegtaa waxa weeye maamulada inoo sheegta ee madaxda aynu ku tilmaamno ee madaxweynayaasha aynu u bixinay ee ina kala qoqobaya ee ina kala qaybinaya ee magaranaysa maxaa ku dhahda qarannimadii waxa weye maxaa ku dhahda u shaqaynaya cadowga ummadda soomaaliyeed ee maxaa qaar badan oo waxa weye ee u shaqaynaya imaaraat ee u shaqaynaya kenya ee u shaqaynaya sirdoonada kale caalamiga kuwaasi al-shabaab dad bay ku leeyihin kuwaasi al-shabaab dad bay ku leeyihin waayo al-shabaab waa dad ummad laysu keenay wey dad waxaa laga yaabaa ay magaranaysaa fikirka diinigu uu ku qalloocday oo waxa weye maxaa ku dhahda ayay magaranaysa maxaa ku dhahda u arka sida tan in janno lagu gelayo waa laga yaabaa inay jiraan laakiin qaar badan oo sirdoon caalamiya baa ku jira qaar badan oo sirdoon ah oo shisheeye ah oo munaafiqiin ah oo shaadhir loo soo geliyey oo qadiyado fogfog u dagaalamaya ayaa ku dhex jira kuwa marka shabaabka ku dhex jira iyo kuwa qarannimadeenni ka socon laadahay maxay ku kala duwan yihiin soomaaliyeed maxay ku kala duwan yihiin baan idin weydiinayaa kuwa magaranaysa maalin walba looga yeedhayo nairobi ee nairobi sirdoonada caalamka kula soo shiraya ama dubay looga yeedhayo sirdoonada halkaas waxa weye maxaa kule caalamka kula soo shiraya ee dhagarta loo soo dhiibaya ummadda soomaaliyeed iyo iyagu maxay kaga duwan yihin maxay ku kala duwan yihin shabaab haddii shabaab aynu lahayso waa tooraboora iyo maxaa ku dhahda afghanistan iyo meelo kalea lagu xukuma haddaynu leenahay
dee kuwanba meelo kalaa laga xukumaa shabaabka laftoodana waxaa jira kuwa qaar waxa weye sirdoon caalamiya baa ku jira sirdoon caalamiya baa ku jira waladoo firsada waxaan leeyahay marka dilkan iyo dilalka dhacaya kuwa boosaaso ka dhacay iyo kan hadda kismaayo ka dhacay dhammaantood waxaa wax ku leh deni iyo axmed madoobe iyo cid kasta kuwa xamar ka dhaca dilalka xamar ka dhaca kooxda xaraash qaran ee xamarka joogta ayaa dilalka geysata iyaga ayaa gabdhaha kufsada iyaga ayaa gabdhaha dhaca magaranaysa dadka dhaca maafiyada iyagaa sameeya waladoo fiirso waayo fishan kale iyo aragti kale oo ay dowladnimada kaga hor yimaadaan ma laha wax kale oo ay magaranaysa dariiq kasta jaranjaro kale oo ay u fuulaan mucaaradnimadooda ma jirto ilaa inay waxa weye maxaa ku dhahda wax qasaan mooye inay dadka laayaan inay dadka amniga magaranaysa maxaa ku dhahda dhibaateeyaan inay dadka dhacaan mooyaane wax kale oo ay sameeyaan ma jirto taa ayay ku shaqeeyaan nimanka jooga waxa weye kuwa garowa jooga iyo kuwa magaranaysa kismaayo jooga iyo ka jooga hargeysa fishanka ayay ku wada maxaa kula shaqeeyaan fishanka ayaa afduubka ummadda afduub kuwani hadday afka inoo soo duubtaan kuwanba afduub bay inoo haystaan ummadda afduub bay u haystaan waayo ummadda rabitaankeeda kuma shaqeeyaan baladoo fiirso waxaa dhici karta ninkaas wadaadka sheekha miskiinka ah in dhagartaasi ay tahay dhagar laga shaqeeyey oo ilaa muuse ilaa iyo axmed madoobe ilaa iyo dhammaan waxa weye maxaa ku dhahdaa isku xidhan waa possible wey maaha inaan anagu naqam caamo ma nihin caruur ma nihin waxa jira baanu magaranaysa maxaa ku dhaha aanu la soconna baladoo fiirso qof kasta oo dadnimo leh qof kasta oo damiir leh qof kasta oo dalkan waxa weye maxaa ku dhahdaa garanayo magaranaysa maxaa ku dhahdaa wanaagiisii iyo sharaftiisii iyo suu ahaan jira ummaddani waxa weye dareemaya qof kastoo dadnimo ku jirto oo dib wax u baadi doonaya tuugta waxa weye siyaasadda iyo tuugada diintu waa kasoo horjeedaan way kasoo wada horjeedaan mar raba waana isku mowqif bay ka yihin waa inaynu ogaano ummadda soomaaliyeed waa inaynu meel uga soo wada jeensano waa inaynu arrintaas allahna waxaan ka baryayaa rabbiga weyne waaxidka ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala inaga guuleeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay inaga guuleeyo haddaynaan isu tegin haddaanay culimmada soomaaliyeed haddaan dhaqanka soomaaliyeed haddaan waxgaradka soomaaliyeed haddaan dhallinyarada soomaaliyeed haddii aanay u istaagin qarannimada ummadda iftiinkaa baxaya ee dowladnimada haddaan la isu taagin oo aan garab la siinin oo aan waxa weye maxaa ku dhahda muruq iyo maalba la isugu geynin horaradu fursadaasay sii haysanayaan jaaniskaasi ka faa'iidaysanayaan waxay ka faa'iidaysanayaan hurdada aynu hurdno ee shacabka soomaalida ay hurdaan kam imisaa laynaga dilay maxaa ku dhahdaa geesi kam imisaa laynaga dilay culimo caalim fiqii ah oo ilaahay subxaana wa tacaala magaranaysa maxaa ku dhahday dayaxa doctor axmed maxaa ku dhahda sheekh cabdiraxmaan doctor cabdilqaadir maxaa ku dhahday faarax gacmi doctor maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday cabdinaasir xaaji axmed doctor waxa weye culimo kam imisaa arday laynaga laayay kam waxa weeye imisaa la xasuuqay ummad waxaa xasuuqayaa ma aha cadow waa gudan yahay haddii aan gobolkaygu kugu jirin ima aanad goyseen waxa weeye waa gacmo dad aynu garanayno laakiin gacanta maxaa ku loo isticmaalayo cid kale ay isticmaalayso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed wax la qaadan kara maaha wax la aqbali kara maaha wax la magaranaysa maxaa ku dhahdaa la yeeli kara maaha wax la ogolaan kara maaha wax la eegan kara maaha waxa weeye maxaa ku dhahdaa in aynu waxa weye sidaa u dhiigbaxno sidaa inaynu u dhiigbaxno waxa weeye maxaa ku dhahdaa 40 sannadood baynu ku soconaa 30 waynu dhaafnay 40 sannadood inaan sidaa u dhiigbaxno wax caqliga uu ogolaan kara maaha wax damiirku uu yeeli kara maaha waxaan ugu yeedhayaa halkan cun leeyahay culimada soomaaliyeed dil baad ku xukumantihiin dhaqanka soomaaliyeed dil baad ku xukumantihiin dhallinyarada soomaaliyeed dil baad ku xukumantihiin gabdhaha soomaaliyeed dil bay ku wada xukuman yihiin waa inaan dhammaanteen wayna fadhiga ka kacna ciddii nolol doonaysay waxa weeye maxaa ku dhahda fursadaha meelaha lagu isticmaalaya waxa weeye waa qabyaalada kow qabyaaladu waa ka mid waxa ka mid ah waxa weeye maxaa ku dhahda qof jeclaysigaa ka mid ah meelaha lagaga soo gelayo qabyaalada kow ka ah qof jeclaysigaa laba ah oo qabyaalada lagu jeclaysanayo qof daalin oo tuuga ayaa qabyaalada ugu raacaya waa dil wey waxa weeye waa inaynu meel insha allah bismillahi karim arrimahaas oo dhan daaqadahaas oo dhan waa inaynu iska wada xidhnaa qof jeclaysiga qabyaalada qarandumisnimada waxa weeye maxaa ku dhahda waa inaynu waxyaabahaas oo dhan iska xidhnaa waa inaynu yaa maxaa ku dhahda soomaaliya aynu nidhahnaa yaa islaama inkastoo waxa ku fiican waxa culimada lagu dilay waa xaq wey
waayo waxa weeye maxaa ku dhahdaa waxaa la laayay ambiyaa la laayay nebiye ilaahay baa la laayay kuwaa la xidhay kuwaa la masaafuriyey waxa weeye maxaa ku dhahdaa iyaga waxa weeye guul bay u tahay culimmada guul bay u tahay waa dhiman lahaa mar walba sariirtiisu ku dhiman lahaa laakiin in gacanka xaqdareen ay disho oo maxaa ku dhahdaa shahaadada ku biiro faa'iiday u tahay maasha allah innagana lafteenana faa'iiday noo tahay in gacan qof kasta oo gacan ka xaqdareen disho waxa weeye dembigiisa daa mid kala qaadanaya wax allaale wixii dembi ka dhacay addoonkaa kalaa dhabarka u ridanaya oo la saaraya waladoo fiirso marka waxa weeye inagu waxay tahay inaynu ku dhiirano dowladnimada inaynu ku dhiirano waxa weeye maxaa ku dhahdaa midnimada ummadda Soomaaliyeed inaynu ku dhiirano inaynu sharafteena iyo karaamadeenna soo celino waxa leenahay sheekha iyo cuqaashi boosaaso ku dhinta lagu laayay dhammaantoodba waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto ilaahay subxaana watacaala waxa weeye qabriga ha u nuuriyo ilaahay subxaana watacaala marti la jecel yahay ha ka dhigo ilaahay subxaana watacaala janno firdowsaha wada geeyo axmed madoobe iyo deni iyo muuse iyo kooxaha xamar ka qayliya we have to fight dagaal baa inoo dhexa xilliyada ka mid ah insha allah bidmillaahi kariim waxa weeye wax yar baa cimrigiina ka hadhay biidnillaahi kariim waa guulaysanaynaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhagarqabayaasha cadowga ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay inaga guuleeyo oo inooga gargaaro waayo waa dhaalimiin waa shayaadiin waa sharwadayaal waa shisheeye kalkaalo in ilaahay inooga gargaaro oo ilaahay inooga hiiliyo bayna ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa waxa weeye maxaa ku dhaha in allah waxa weeye ilaahayna subxaana watacaala waa samiicun caliim weeye waa maqal badane waxa weeye falsan weeye waxaynu u baamaganaysaa wax walba inaga inagu xidhan tahay inaga ayay inagu xidhan tahay rabitaankeenna iyadoo laynagu imtixaamayo waxa aynu doonaynaa ma serious ma ka nahay dhab ma u doonaynaa mise waxa weeye maxaa ku dhaha emotion iyo xamaasad bay weeye waxaan emotion iyo xamaasad waxba laguma helo laakiin waxa wax lagu helaa waxa weeye maxaa ku dhahdaa waa magaranaysa maxaa ku dhahdaa waxa weeye maxaa ku dhahdaa waa mabda weeye haddaynu doonayno mabda inaynu u badbaadno oo aynu jirno oo aynu waddo meel dheer eegayno oo allah subxaana watacaala la kulankiisa aynu rabno oo sida sharaf leh sida ilaahay inoo sharfay aynu u noolaano allah subxaana watacaala wayna siinayaa gacanteenna maankeenna iyo muruqeenna ku jirtaa meel kale ma jirto waayo waad arkaysaan ummadaha ilaahay subxaana watacaala ummadaha kuwa aan ilaahayba rumaysnayn ayaa ilaahay subxaana watacaala u horumariyey oo wax walba siiyey oo waxa weeye maxaa ku dhaha allah idin barakeeyo waxa weeye wax walba siiyey oo maxaa garanaysaa maxaa ku dhaha aad arkaysaan muxuu ku siiyey ilaahay subxaana watacaala maaha hadiyad maaha way kasbadeen waa waxay iskasbadeen weye waa waxay u ordeen weye waa waxay waqti geliyeen weye waa waxay maankooda ka keeneen weye taasaa ilaahay siinaya subxaana watacaala annagana haddaynaan u qalmin dowladnimada haddaynaan u qalmin horumarka haddii aynaan u qalmin ismaannimada haddaynaan u qalmin ummadnimada layna siin maayo ma layna siinayo sababtoo maba u qalanaba marka waa inaynu u qalannaa ummadnimada waa inaynu u qalannaa waa inaan u qalannaa maxaa ku dhahdaa inaan magaranaysaa sharaf yeelano iyo karaamo waa inaan u qalannaa inaan sidii ilaahay subxaana watacaala waxa weeye siduu inoo karaameeyey karaamo inaan ku noolaano waa inaan u qalannaa wey saa darteed waa inaan wax walba oo kale meel iska dhignaa qashin oo dhan waa inaan meel iska dhignaa qabyaalad qof jeclaysi qashin waxa weeye maxaa ku dhahdaa magaranaysa maxaa ku dhahdaa qowlisanimo shisheeye kalkaal jinni laaluush xaaraan balaayo jin waxaasoo dhan waa inaan daaqada iskaga xidhnaa insha allah bidnillahi kariim aad iyo aad allah idin barakeeyo baan idin leeyahay allah idin dhowro waxaan leenahay ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala culimadaas dhiigooda ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay naga jasaa khayrkooda khayr nagu siiyo ilaahay subxana wataala gacantaa ka xaq daran culimadu waxay yiraahdeen waxa weeye maxaa ku dhahdaa dhiigga culimada waxa weeye waa laguma khasaaro laakiin waa laga daba faa'iidaa waayo dulmigaas ilaahay subxaana watacaala lagu laayay culimada allah subxaana watacaala wuu jeedaa hoojin maayo diinta iyo dadkan muslimiinta ah ee wanaagsan dadkan xaqdoonka ah dadkan xaldoonka ah dadkan wanaagdoonka ah ilaahay hoojin maayo cadowga ilaahay allah subxaana watacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay inaga guuleeyo cadowga ummadda Soomaaliyeed inagana qof kasta iyo qoys kasta iyo maxaa kale meel kasta aynu joogno waa inaynu la nimaadnaa waajibaadka waxa weeye ilaahay ina saaray kullukum raaci wa kullu mas'uul an raaciyati qof kasta waa mas'uul qofka wuxuuna mas'uul ka yahay wixii la raaciyay waa inaynu mas'uuliyadda qaadnaa siday tahay aynu qaadnaa waan arkaa social media qabyaalad iyo qashin iyo qof jecel waxa waxba lagu meelo walaalayaal waxa waxba lagu meelo mabda baa wax lagu helaa mabda ilaahay subxaana watacaala kuwii mabda yeesha
oo mabda'oodu uu yahay maaha qaran uun inaanu magaranaysa maxaa ku dhahdaa inaynu doonee qaran ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka yahay qaran waxa weeye maxaa ku dhahdaa diinta ilaahay ilaalinaya qaran dadka waxa weeye akhlaaqdooda dhisaya qaran dadnimadii soomaaliyeed soo celinaya dadnimadii ummadda soomaaliyeed soo celinaya baynu u baahan ilaahay subxana watacaala qof kastana mas-uul baa ka saaran not in madaxweynaha keliya mas-uul ka saaraya qof kasta oo mawaadina in wadan la raadiyo la helo dowlad caadila oo ilaahay raalli ka yahay oo waxa weye maxaa ku dhahday ummaddan waxa weye maxaa ku dhahday ku dhaqda waxa weye xaqa ku hogaamisa qof kasta mas-uul baa ka saaran waayo qof walba maslaxad baa ugu jirtaa qof walba dan baa ugu jirta arrintaa iyada saadee qof walba waa inu mas-uuliyaddiisa gutaa inagana kuwii mas-uuliyaddooda guta allah inaga dhigo allah weyne waaxidka ah culimmadeennii dhimatayna allah wada naxariisto dhammaanteeda gacmaha ka xaq kuwii maaragtay bestoodu dhintay iyo kuwii maxaa ku dhahda gacanta ka xaqdareen dishay ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantoodba ha u naxariisto dhammaantoodna janno fardowsaha ku kulmiyo inagana ilaahay subxaana wa tacaala ha ina xifdiyo culimmada inoo joogtana allah ha inoo xifdiyo culimmadu waa warasatu alambiya culimmadu waa indhaha waxa weeye bulsho ummadda weeye culimmadu waa dhegaha ummadda weeye culimmadu waa maskaxda ummadda weeye culimmadu waa cilmiga ummadda weeye laakiin ma ka dhiganaa soomaaliyeed ma ka dhigana in halkaa inkaari naga dhacdaan ka baqaya waayo waan arkaayo waxa weye maxaa ku dhaha hadda markaad aragto social media markaad aragto ciyaala suuq baad arkaysaa 5,000 baad daawanaysaa shiikhii caalimka ah diinta ilaahay fidinayana 100 ma gaadhayo dhowr iyo 20 baad daawanaya iyo wax la mid ah waa ihaano aan ihaanaysanayno ma garanaysa maxaa ku dhaha diinta ilaahay mid caytamaya oo qabyaalad iyo qashab iyo balaayo iyo baas ka shaqaynayana waxaad yaabaysaa sida loogu xunsay caqli yari iyo cilmi yari meeshan ka joogna bay tilmaamaysaa arrintaas allah subxaana wa tacaala hayna dhowro ilaahay ummadda soomaaliyeed ha soo celiyo caqligeeda ha soo celiyo cilmiga ilaahayna allaha fahamsiiyo waxa weeye wamaa khalaqtu jinni walinsi ila liyacbuduun ما أريد منهم من ما أريد وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يدعمون الله سبحانه وتعالى وحليه وما أنا أبور جني إنسي وحوي محاكل هذا إن عابدان مويا كما دون الرزق يين وحسيان أنا عيار ساقة أنا عيار أنا أبوري أنا إرساقة لكن وحوي محاكل وين عبادة الله ماذا وين قرتان وحنو أبوري وين قرتان وحنو إرساقة وين قرتان وحنو أهيسية وين قرتان وين كيف فكران وين الدنيا ذن وحوي عركم وين يدولكم وين يا مقرنا سمحاكل هذا مالنتن يا هبين كن يا محاكل هذا وين وحسكوي ديا ومن آياتي وين الله تفرس أديات بان السلام يا الله يدين بركيه الله ينحفتيه مالا نشوقنا با hana inoo wada barakeeyo dhammaanteenba guliga gobonnimaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay dhammaanteenba inoo wada xifdiyo waxa weye dhammaanteena inagu kulmiyo jannooyinka waxa weye jannatu firdowsa culimmadeenniina ilaahay u naxariisto wa sala allahu calayh wacala ali wasaxbi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu